عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال مeel walba caalamka ka joogtaan iyo si walba oo idin la socotaanba waqtiga haydii wacnaado wayaan haydii samaad aad baad ugu mahadsantihiin daawashadiina iyo waqtigiina qaaliga aad gelisaan fadlan hadii aad channelka ku cusub tahay ay tahay markii kugu horeysa aad soo booqato waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe saarto kanaalkana aad furato si aad mar walba u hesho muuqaaladii ugu dambeeyay aan soo dhigno. bal maanta maxaan idin hayaa waan wadaagi doonaa. maanta waxaan wadaagi doonaa muuqaal aad iga yaabiyo run ahaantii waxaad arki jirteen wax laga xishoodo ama qofka bid dumarka inay ka xishooto naas iyo waxyaabaha la mid ah. maanta waxaan daawan doontaan ama ay idin tusi doonaa in lagu faano isagii in lagu faano oo waliba loogu faano si caadi ah oo aanan xishood iyo hayo midna aanan lahayn. waa fanaanada weyn ee Nadiira Nayrus oo la fadhiyo ninkeedii Aidiid Jawhar iyo gabar kale oo saddexaad oo aanan garanaynin laakiin waxyaabaha iga yaabiyay inta aanan idin gelin ka hor bal in yar ila soo daawo. naas ma ku caasin kara seeway ma ku caasin kara labada meel ka nooshaday labada lana inta waa ka noolto sidaad aragteen waxay tiri laba ayaa ku faanaa midna waa naas ta kaleetana waad ku darsan kartaan oo halkii ay ciyaarteedii ugu horeysay ee muuqaaladeedii ugu badan ay ka soo duubtay waana inay aad uga ciyaarto xagga sare ee jirkeeda. runtii anu iyada lama yaabin oo waxay ahayd dhaqan markii hore ay wadateen Nadiira Nayrus laakiin waxa la yaabay in oo maanta ninkeedii oo ag fadhiyo ay ku dhiiranayso in ay sameyso waxyaabahaasi oo kale. taa markii aan arkay kadib haddana waxaa la sii yaabay ahayd in oo u sheegay in uu maqlay amaba uu ku arkay message-yada loo soo diro ama fariin qoraaleedka inta badan loo soo bixiyay comment-iga in uu ka arkay sababta ay timaheeda u faydan weyday. hadalkaasi markii aan ka maqlay kadibna waxaan u arkay waa nidala wadaagi doonaa balse horta markii ugu horeysa haddii aad been moodaysid bal ila soo yardaawo wuxuu leeyahay inta badan waxaan ku aragnaa qaas oo qoray nidal wax timaha sidaad soo aragteen miyaysan ahayn arrin run ahaantii aad loola yaabo waayo wuxuu ku dhiirigelinayaa inay madaxeeda banaysato mana aha wax qurux badan. zamankan sidaan ka warhayno waxaad arkaysaa dad xumaha qof ku dhiirigelinayo oo jecel qofkan inuu xumaan sameeyo laakiin taa ma ahan wax wanaagsan oo waxaan kaloo ku leeyahay adigu waxaa tahay qofkii asturi lahaa xataa haddii aad aragto qoraalo noocaas oo kale waxay ahayd in aad ka masaxdo ma ay ahayn xitaa inaad tusiso. Aidiidow waxaan ku leeyahay si fiican isku qabo oo waxaad ka talisaa wanaagga xaaskaaga mar haddii aad baxaaskaaga ay tahay waa inaad wanaageeda ka talisaa. asxaabta idinkana waad aragteen waxaan rajaynayaa in badan inaad soo falanqayn doontaan ama waxa idinla tahay aad ka hadli doontaan inta aan mar kale kulmi doonana waxaan idinkaga tagayaa fi amaanillah iyo is arag dambe oo xiiso leh.